luuq oo barigaasi dad badan u joogo oo aad ay u sidantay dawladnimadeeda iyo muuqaalkeeduba halkiiba annagoo subax joogna yuu soo degay ninka la yidhaaha aadan gabiyo wasiirkii gaashaandhigga markaa ahaa oo yaa soo degay aadan gabiyo markuu soo degay Sheikh Hussein wuu sheegay wuxuu yiri ninka meesha fadhiya ma taqaana maya waa kuma uu yiri daa'al nuur wiilka ma qasay man ilaah ba ku ogo ninkana daa'al nuur buu yiri daa'al nuur waa kan odayga culuubka ribaadiha haa buu yiri waa kan bariige buu yiri aadan gabiyo bulshada militariga baabuurtiisi goonyaha ay ka yaacayso ya daahir soo booqday oo salaamay daahir baa la yiri ninka ku salaamayo waa aadan gabiyo wasiirka gaashaandhigga weeye waana aadan gabiyo daahir gacanta markuu qabsaday ee isa salaameen ma una sii deynina gabay markaa indhihiisa uu kaga hadlayo ayaan goobjoog ahayo oo halkaas aadan gabiyo ugu tiriyay wuxuuna yiri dani seeta way hadii dabarka la saaray dam hadii yiraahdeen indhihi waxday waayay dumarkii ragguba way arkaan darajadaydaasi ninka ii dadaaliya ninkan darajo ii haynin dadka kale oo baan la daar wuxuu yahay deeqlow ilaah baan bariyay iyo nabiga dooraay awliyooyinkan diran jiro weedan soo dumay duco iyo inkaar baan ayaa labada deeg saare nin walba midku iga dalbada dirata uu raacdo dabaxuma adduuna hore looga dal jiray dib hadaad u sii fiirsana malaha dawliile dugdugtaadu waa maalinta diiran tahay oone ninkan daarta yaalla fadhiya daahir Soomaha dunida ninkan kala arkeen daahir Soomaha ninku dumarku daandaansada daahir Soomaha ninkan ubadka daadaawaneyn daahir Soomaha tanqashaba ninkan lagu arkeen daahir Soomaha daa'ima sideedii ninkan loo dalaandalini ee dibadda loo sii wadana daahir Soomaha dayax dhacay dib kuguma noqdo wala dadayaay murtidii dabooleydna waa idin dul marayaay damacweynta reer waafatay iyo geesiyada duuban adan khayrka dooxada dagay bayga darandooli iyo doqolnamood reer abka abdaar wuxuu yahayba ducaqabaha reer qaasin iyo doorka reer caliya ducaqabaha reer qaasin iyo doorka reer caliya reer waaxid dood lagu hadlo iyo deeqda lagu sheegay soonqaadka daacada alle iyo diinta lagu tuuray dulunyaraha reer xawis iyo dawdi reer abakar sagaalkii dab baan doonayaa darajadoodii darabtaan ka jira reer tolkay kama dilaalayne war ma daranyadaydaan la maqalay ma soo deeyne dan haddaan la ii gelin indhana la iga daaweyn walla way dulaysaa kobtaan idinka dayraayay sidii daahir la yidhi aqligu ima dabolayne waxaan diidi mooyeen arrino iguma daahnayne anigoo dalaandalayaa deeq la ii furay dayax dhalada yaalaanahay iyo dirir sidiisii gabaygii aan dalandoolin jiray uu dabaal maray bad inuu dardaray waa waxa dan ogaateene daaraha madiiniyad markaa daabac loo dhigay daarta xamar dukaamada berbera guriga dooloowa daafeed in loo gaadhay iyo deganka baar dheere degmadii hargeysiye intii dib uga soo jeeda dirida Sheikh Hussein daadhaagaheeda ka soo dadaba doolle iyo ciid ama sadaar weyne dacwaadkayga waa laga hayaa darafog adeene dadoo idil wuxuu wada lahaa daahir baa yidhi maantana ma daynina afkii uu durdurayaay oo weydan daafici hadduu dulun yimaadaay war ma daranyadaydaan la maqalay ma soo dayne dan haddaan la ii gelin indhana la iga daaweyne walla way dulaysaa kobtaan idinka dayraayay duqa aadan gabiyo waxa uu ooyay fasileetu la soo baxay indhihii ilmadiiba iskaga tirtay aminkiina amar buu bixiyay lacag 30,000 oo dhaarta joogta iyo baabuur la guruus la faraha laga saaray habeenkii damaba balad xawaan ku dheelmay subaxii damana indhaha loo beeqay taasidaas indhihi ugu baxeen luuq oo barigaasi dad badan u joogo oo aad ay u sidantay dawladnimadeeda iyo muuqaalkeeduba halkiiba annagoo subax joogna yuu soo degay ninka la yidhaaha aadan gabiyo wasiirkii gaashaandhigga markaa ahaa oo yaa soo degay